يا حامل القرآن قد خصك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga aan khayrka ku walaalownay, waxaan idin leeyahay maalin wacan. waxaan muuqaalkan ku soo bandhigi doonaa barnaamijkii taqliidka quraada caalamka ee qaybtiisii labaad oo aan ku soo qaadanay qaariga maahir al-mucayqali. barnaamijkan wuxuu si toos jimco kasta loogu qabtaa gruubka WhatsApp-ka ee walaalwaaniye, kaasoo run ahaantii aad u xiiso badnaa. barnaamijkani qaybtiisii labaad waxaa ka qayb qaadatay 47 qof oo isugu jira rag iyo dumarba. walaalaha qaar Allah barakeeyo way dadaaleen oo taqliidkii way isku dayeen, kuwa qaarna codadkoodii caadiga ah ayay ku aqriyeen oo say ila tahay taqliidkii maynan fahmin. insha Allah maanta waxaan halkan kusoo gudbinaynaa guulaystaha ka dheereeyay ee intaas oo qof ka cod qurux badnaaday, walibana aan laga aqoonin qaariga maahir al-mucayqali. haddaba waa kuma guulaystaha kaalinta koowaad u diiday oo ka difaacday asxaabta kale? walle waa lis hayaa. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن hambalyadaa loo diro walaalka isbuucan meesha ka soo muuqday. waxaan sidoo kale idin rajaynaynaa dhammaantiin in aad jimcaha xiga isoo adkaysaan oo aad sidan oo kale meesha uga soo muuqataan insha Allah. khayrka ayaa naga mudan in aan u tartanno. dhammaan walaalaha khayrka u tartama, cid walba doonaysa in ay ka qayb qaadato barnaamijka taqliidka quraada caalamka, waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan ku dari doonno gruubka WhatsApp-ka ee walaalwaaniye si aad jimco kasta wacdaro laga yaabo aad ka dhigtaan. waana mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.